بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسيني سغالات برنامجكeenii ahaa Nuxurka Soonka. maanta haddii ilaahay waxaanu qaada dhigi doonaa oo ka hadli doonaa waxyaalaha soonka buriya. waxyaalaha soonka buriya aad bay u tiro badan yihiin. maanta qayb baan ka hadlaynaa insha Allah, berritana qayb kale ayaan ka hadli doonaa insha Allah haddii ilaahay waxaa kamid ah waxyaalaha soonka buriya cuntada iyo cabitaanka kamid ah. qofku inuu wax cuno wax cabo soonku ka buriya. cunida iyo cabidu wax hadal kama taagna inay soonka burinayaan, waayo waa bisriix al-adilla way adilladu toos u cadeynaysa quraanka iyo sunnadii. ilaahay waa isaga yiri fal'ana bashiruhunna wabtaqu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. ilaahay aayada wuxuu ku cadeynayaa dadku in habeenka loo baneeyay jimaaca cunada cabitaanka, laakiin maalintii aysan u banaanin. ilaahay wuxuu yiri thumma atimmu siyama ila al-layl, afaysiga taam yeela ilaa laga gaaro habeenka kale. marka maalintii inaan qofku waxa weeye uusan la imaanin waxna cunaynin waxna cabaynin jimacna la imaanin bay aadaas soo cadeynaysa. inta hadduu la yimaadana uu soonka buriyo. sidoo kale xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis qudsiga asna cadeynaya oo ahaa ilaahay uu lahaa yatruku طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. طعامkiisa cunadiisa iyo cabidiisa iyo shahwadiisa aniga dartii buu u tagaya. marka adiladaas oo nasuustaas waxa cadeynaysa cunada iyo cabitaanku inay soonka burinayaan, ayna yihiin wax ugu muhiimsan oo laga afaysanay. imaam Nawawi sidoo kale wuxuu soo naqlinaya kitaabkiisa majmuuca ijmaac wuxuu soo naqlinaya wuxuu leeyahay ajma'at al-ummatu ala tahrim at-ta'ami wash-sharabi ala as-siyam ala as-sa'im. ummadda waxay ku ijmaacday in طعامka cunada iyo cabitaanku ay xaraan ka yihiin qofka saa'imka ah. wuxuu soo naqlinaya mujalladka 6 safxada 312. marka kow waxa aan sheegnay in ay yihiin طعامka iyo sharaabka cunada iyo cabitaanka. qodobka labaad oo soonka burinaya waxa weeye waa waxyaalaha la halmaala cunada iyo cabitaanka. waxaa jira waxyaalaha la haleelsiinayo cunada iyo cabitaanka. waxa weeye waxyaalaha la haleelsiinayo waxa weeye waa wax kasta oo jurmi leh oo qofka daakhalkiisa gudihiisa gala weeyaan, kana gala manfad maftuux ah, marin furan ka gala. marinada furan marka waxa weeye waa afkii oo kale, sankii oo kale, xubinta taranka, duburtii, dabadii, meelaha qofka wixii ka gala oo gudaha daakhalkiisa u gudbana soonka way burinayaan. waa bittifaaq ulama way taas intaas wala isku waafaqsan yahay. isha iyo dhagta wixii ka gala qofka oo gudaha u galana khilaaf baa taa ka jira oo ma burinaysa iyo ma burinayso ayaa la isku haysaa. waana sharxi doonaa haddii ilaahay. marka wax allaala wixii daakhalka gudaha ama jawf bay dhahaan, wixii jawfka gudaha u gudba oo marinadaas furan ka gala soonka way burinayaan. marka jawfku waa laba qaybood weeye, waa maskaxdii iyo calooshii. iyo caloosha wixii markaas waxa weeye raaciyay ama ay koobsanaysa. marka maskaxda wixii u gudba oo marinadaas soo maro maskaxda marka u gudba soonka way burinayaan. sidoo kale caloosha wixii u gudba iyo caloosha waxay koobsanayso sida kaada haysta oo kale, mindhiciradii oo kale, daakhalka gudahaas wixii u gudba oo marinadaas soo mara furanna soonka way burinayaan. okay, marka maskaxda wixii u gudba in soonka ay burinayso taa maxaa u daliila? taa waxa u daliila xadiiskii uu warinayay Laqiit ibn Sabirata ninkii la oran jiray saxaabiga ahaa radiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wasallam qaala asbiq al-wudu wa khallil bayna al-asabi' wa baligh fi al-istinshaq illa an takuna sa'iman. rasuulku wuxuu ku yiri waysada ku xeel dheerow farahana isdhex galgalisay biyaha u gaaraan, kuna xeel dheerow sidoo kale sandaarsiga. istinshaq waa sanka oo biyaha u galisay illa an takuna sa'iman inaad sooman tahay mee. marka xagga waxaa laga garanaya qofka saa'imka inuu saasoo ku xeel dheeraan, waayo waxaa la diidayaa inay biyihii ay gudaha daakhalka galaan oo maskaxda ay gaaraan. xadiiskaas marka laga qaadanaya in wixii maskaxda u gudbana ay soonka ay burinayaan. xadiiska waxaa warinaya Abu Daawud baa warinaya kitaabka tahaarada ku warinaya, sidoo kale Nisaa kitaabka tahaarada ayuu soo saaraya asaguna. caloosha iyo waxa ay koobsanayso oo sida waxa weeye kaada haysti iyo mindhiciradana wixii u gudbana ayuu soonka way burinayaan. oo adillada umum al-adilla laga qaadanaya adilladan macnaheesa sharaabka iyo taamka in qofku wax allaala wixii sharaaba iyo wixii taama inuu isticmaalo intuu saa'imka yahay adilladaas laga qaadanaya. oo ilaahay waxa ilaha yatruku ta'amahu wa sharabahu min ajli. marka taamka iyo sharaabkan calooshan bay galayaan. marka waxa allaala wixii caloosha galana ayaguna waxa way soonka way burinayaan oo adillada umumkeeda laga qaadanaya. okay, sidoo kale waxa laga qaadanaya hadal laga wariyay ibn Abbas. ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وحي إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. waxa laga weysiisanaya qofka weysiisanaya waxa weeye waa wixii qofka
gala waa wixii waxaad tiraa qofkii wixii kasoo baxahaa inama alwudu wixii weysada waxa laga weysaysanayay waa mima yakhruj waa qofka wixii kasoo baxa sidii kaadidii saxaradii riixdii waxaas buu qofka weysanaya walaysa mima yadkhul wixii gala ma wixii gala qofka ma weysanaya wa inama alfitru mima dakhala walaysa mima kharaj waxa qofka uu ku afurayana oo qofka soonkiisa ka fasaadinayna waxa weeyaan bi waa wixii qofka gala weeyaan laakiin wixii kasoo baxa ma marka hadalka ibn Abbas waxa laga qaadanaya waxa la qofka wixii gala gudihiisa joobkiisa gala in asagana ay soonka ay burinayso hadalka waxa soo saaraya Bayhaqi baa Sunan al-Kubra soo saaraya mujalladka koowaad safxada 116 Imam an-Nawawi wuxuu leeyahay wuu tasxiixinaya waa saxiix uu leeyahay majmuuciisa okay aimado dhan waxay isku waafaqsan yihiin wax allaale wixii gudaha daaqilka qofka gala oo marka waxa weeye cayn waxa weeye wixii jurmi law ama ha noqdaan taam cunta ha noqdaan ama cabitaan ha noqdaan ama ciid ha noqdaan ama dhagax ha noqdaan wax engegan ha noqdaan wax qalalan ha noqdaan ha badnaadan ha yaraadaan hadii doon hal xabo sin ha noqdaan waxa soonka way burinaya illa ma yabqa min khilal al-lisan li mashaqqati al-ihtiraz bihi waxa la soo reebaya wixii ilkaha ku baaqi noqda oo hadhowdi qofka isagoon ooyin dalakh gala waxa soo kala soonka burinaya sababtoo waxa maxay yeelay in la iska ilaaliyo adag diintana waxa weeye waxa kamid ah diinta maqaasideeda waxa kamid ah rafcul haraj baa kamid ah dadka in dhibka laga dulqaado ayaa kamid ah okay marka waxaan rabaa waa inay wax jurmiya waxa galaya qofka oo soonka burinaya waxa baxay wixii aan jurmi ahayn oo joobka gaara qofka gudihiisa daaqilkiisa gaara sida hawadii oo kale qofka hadii gasho riixdii oo kale waa baxaysa dabayshi waxa weeye uumiga biyaha waxa weeye biyuhu markay qawaan oo kale waxa weeye ladkooda uumiga ka soo baxa uumigaas biyaha qabow iyo uumiga biyaha kululkooda hadii galaan qofka soonka ma burinaya waayo maxay waxaas dhan wax iska wax saameyn aweeye iyo wax iska astaama aweeye maaha waxdii jurmi iskale maaha sidoo kale waxa allaale wixii qofka ay adag tahay inuu iska ilaaliyo oo ka dhowrsadana ayaguna waxa weeye soonka ma burinayaan sida waxa weeye qofka marka masalanba la haadinayo kale raashinka la haadinayo kale boorka yimaado boorka qofka haduu galo kale soonka ma burinayo boorkii dariiq oo kale soonka ma burinayo sidoo kale candhuuftii oo kale soonka ma burinayso xaakada laakiinse iyadoo culimadu in badan oo kamid Shaafiiciyada waxay qabaan qofka xaakada haduu awoodi karo inuu tufo oo marka waxa weeye uu tufin uu liqo way ka burinaysaa way qabaan inkastoo culimada qayb kamid ay qabaan inay burinay laakiinse Shaafiiciya anagu nahay inay burinaysaa ay Shaafiiciya qabtaan okay marka saan sheegnay waxaan ri wixii qofka ka gala marin furan marinada furan marka waxay isku jiraan waa afkii waa sankii waa qaybtii xubintii taranka iyo duburtii oo dabadii ah afartaas marka waxa weeye culimadu isku waafaqsan yihiin afarta wixii ka gudba oo daaqilka gudaha u gudba in soonka burinaya laakiin salaba la isku khilaafsan yahay oo ah isha iyo dhegta labada la isku khilaafsan yahay Shaafici Xanafiyada iyo Shaafiiciyadu ayaga waxay qabaan wixii isha ka gudba oo gudaha marka gaara ama dhuunta gaaran ama maskaxda gaaran inay soonka burin bay qabaan waayo maxay yeelay bay dhaheen ma aha ishu manfad ma aha maftuuxay dhaheen ishu ma aha marin furan ma ay dhaheen ishu sala adligeed wixii isha ka qofka isha intay ka baxaan gudaha u gudba soonka ma burin ay saasay qabaan tusaale ahaan qofka haduu masalan subag buu marsaday subagii marka ishu inta gudbay qofku wuxuu ka dareemay dhuuntu ka dareemay ama dhakool buu marsaday dhakooshu dhuunta ka dareemay waxyaalaha noocaas oo dhan marka waxay dhaheen Shaafiiciyadu waxay qabaan inaysan soonka burinay hadalkaas waxaad ka heli kartaa ad-Durr al-Mukhtar kitaabkaas Xanafiyada xageeda dhankan kale waxaad ka heli kartaa Shaafiiciyadana muqna muxtaajka sharh minhaj ayaad ka heli kartaa ayada okay marka xadiis bedelisanayaan Anas bin Malik laga warinay radiyallahu anhu uu leeyahay Anas wuxuu ahaa annahu kana yaktaxil wa huwa saayim Anas uu inda kuulan jiray asagoo sooman inda kuulan jiray marka inda kuusho hadii qofku inta dhakuusho uu marka dareemo gudaha ka dareemo waxba soonka ma burinay xadiiska waxa warinaya ii sheegay afarkaas Abu Daawud ayaa warinay okay maalikiyada ay waxay qabaan qofka haduu uu inda kuusho maalintii oo shay inda kuusha kamid ah uu gudihii gaaro masalan madhuuntii uu gaaray inda kuusha uu dhuunta ka dareemay qofkaas waa afuraya saasay qabaan waayo maxay yeelay qofku waxay dhaheen maadaama deelayidii rasuulku yiri qofku isu ku xildheeraanin sandaarsigii teetana waa la mid bay dhaheen ma garata qofka haduu ku xildheeraado in kuush ku xildheeraado in kuush ay gudihii uu ka dareemo xalqi ka dareemo ayaduna marka qofku uu ku afuraya saasay qabaan kitaab waxaad ka fiirin kartaa al-Mauna ala madhhabi caalim al-Madina oo iska leeyahay al-Qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi waad ka fiirin kartaa kitaabka la dhaho Tabyin al-Mansalik ayaa ka fiirin kartaa ayaduna
sidoo kale hadalka waxaa ku waafaqsan Axmed bin Xambal baasna ku waafaqsan oo wuxuu qabaa wixii markaa waxa weeye isha xaggeeda ka gaara oo gudaha gaara inay iyaguna soonka burinayaan waayo labadooda waxay qabaan imaam Malik iyo Axmed bin Xambalba inay ishu ay tahay manfad maftuux inay tahay bay qabaan لأن العين منفذ بينهم ومنفذ بينهم ومرين بينهم وإن كان غير معتاد يوصاهان با mid laga caadiyo shay yuusahaane laakiin waxay qabaan inuu marin yahay sidoo kale xadiis bi soo qadanayaan oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam laga warinayo annahu sallallahu alayhi wasallam amara bil ithmid rasuulku ku amray in ithmidka qofku uu la yimaado oo marsado laakiin wuxuu rasuulku yiri bay dhahan liyattaqihi as-saa'im ithmidka ka dhowrso iska ilaaliyo qofka saa'imka ithmidku waxa weeye indha kulway iska ilaaliyo xadiiska waxa warinaya Abu Daawud baa warinaya inkastoo xadiiskaas Yahya bin Mu'in wuxuu leeyahay xadiiskaas waa munkar ayuu leeyahay marka uu finhaaya Ahmed bin Hanbal iyo Imam Malik ba waxay qabaan wixii isha ka gudbo gudaha gaara in aysan soonka aysan burin Hanifa iyo Shafi'i waxay qabaan wixii isha ka gudba oo gudaha gaara inay soonka ay aysan burin bay qabaan Hanifa iyo Shafi'i waxay qabaan wixii isha ka gudba oo gudaha gaara inay soonka burin Malik iyo Ahmed bin Hanbal waxay qabaan wixii isha ka gudba oo gudaha gaara inay soonka burinayaan oo saasi kaliya okay dhegta ka waran marka dhegta sadada axnaaftu waxay qabaan wixii dhegta ka gudba oo gudaha qofka gaara hadduu doono kasba asagu waxa weeye ha u sameeyay soonka ma burinayaan saasi qabaan waxaas laakiinse waa haddii uusan hayn bay dhaheen duhniga subaga haddii subag dhegta iskaga shubo oo subagaas gudaha gaaro asagu waxay dhaheen wuu burinayaa sababtu waxay dhaheen li'annahu صالح waxaa ku jira maslaxada jirka ugu jirta subaga bi khilaaf ilmaa bay dhaheen biyo ay waa ka duway hadii biyo dhegta ka galaan qofku ay gudaha gaaraan soonka ma burinayaan laakiin se waxa weeye duhni iyo subag hadduu qofku dhegta iskaga shubo soonka way burinayaan bay qabaa jirka ayaa waxa ugu jira dhaheen nafci ugu jira hadalka waxa kale kartaa kitaabka la dhaho الهداية شرح بداية المبتدئ ويسكله هي مرغناني المرغناني باسكله marka insha Allah taala intaas baan ku joojinaa haduu lahaydmo qodobada kale marka dhimanaana oo waxyaalihiisa soonka burinayana dib baan kaga dara doonaa insha Allah. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.